kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka xulka wararka Bollywoodka waxaa ka mid ah Barahud Defa ayaa director ka noqon doona Taban 3. Shah Rukh Khan oo sheegay in uu filimka duplicate daawaday hal jeer ka badan. Qadar Khan waa sidee xaaladiisa caafimaad ma nool yahay. dhowr toddobaad ka hor Qadar Khan asagoo gudaha Hindiya ku sugan si dhaqso leh ayaa dalka Canada loola cararay. qodobadaasi waliba qodobo kale oo aad xiiso badan ayaa ku daawan doontaan barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. Barahud Defa ayaa director ka noqon doona Taban 3. filimka caanka ah Taban waa taxane hirgalay oo magac blockbuster xumbaarsan maadaama labadiisa qaybood oo hore kuula lixaad leh gaareen, balse maanta Taban 3 in muddo ah ayaa la hadal hayay, waxaana haatan la xaqiijiyay in Barahud Defa uu ka noqon doono qaybta saddexaad director. sidoo kalena Eid 2018 ayaa la taaban doonaa. Salman Khan iyo Barahud Defa hore waxay u wada sameeyeen filimka hiidka weyn noqday Wanted, kaasoo soo baxay sanadkii 2009. markaana Taban 3 ay dib ugu midoobi doonaan. Salman Khan wuxuu duubista Taban 3 ku bilaabi doonaa bisha December ee sanadka dambe. sidoo kale daawadayaal ma ogtihiin Taban 2 inuu director ka ahaa Salman Khan walaalkiis Arbaaz Khan. sidoo kalena waxaa Trisha ka ee Sonakshi Sinha wuxuuna soo baxay sanadkii 2015. Barahud Defa waa jilaakii 9 ee caalamka oo ka ciyaarka uga yaabsaday oona inteena badan u naqaana atooraha Bakistaanka. Qadar Khan waa sidee xaaladiisa caafimaad ma nool yahay. dhowr toddobaad ka hor Qadar Khan asagoo gudaha Hindiya ku sugan si dhaqso leh ayaa dalka Canada loola cararay maadaama qalin dhanka jilibka looga sameeyay uu qaltamay. halyeegan waa iska bukaan socod lagu wado gaariga bukaanka. 14 bishan ayaa akhbaartiisa ugu dambeysay la helay, sidoo kalena la sheegay in uu dhaamo sidii hore. halyeegan dalka Canada ayuu caafimaad u joogaa, wuxuuna la nool yahay wiilkiisa. Shah Rukh Khan oo sheegay inuu filimka duplicate daawaday hal jeer ka badan. jimcadan aan soo dhaafnay waxaa tiyaatarada la saaray filimka duplicate ee megastar Salman Khan hogaamiyaha ka yahay, laakiin kuwa filimada ka faallooda ayaa sheekada filimkan si weyn u soo dhaweynin. haddaba Salman Khan saaxiibkii superstar Shah Rukh Khan ayaa ka mid ah dadka filimkan duplicate sida weyn uga helay, asagoo sheegay in uu daawaday hal jeer ka badan. SRK uu u dabaaldegayay munaasabadda Ciidul Fitriga ayaa saxaafadda wareysi qaas ah siiyay, waxaana la weydiiyey SRK in uu fiirsado filimkan duplicate iyo in kale. SRK ayaa saxaafadda u sheegay in duplicate uu fiirsaday hal jeer ka badan, sidoo kalena wuxuu sheegay in uu si weyn uga helay filimka duplicate, asagoo dhahay ugu horreyn waxaan si dhammaystiran u fiirsaday filimkan marar kala duwan. sidoo kale daawadayaal ma ogtihiin Shah Rukh Khan filimka duplicate inuu ku leeyahay muuqaal yar. sidoo kale saxaafadda ayaa SRK ka weydiisay sida uu u aqbalay doorkiisa filimka duplicate, wuxuuna dhahay marka Salman Khan ii soo bandhigay doorkan yar kama diidin, sababtoo ah ma jirta cid Salman Baayi maya dhihi karto. sidee u dhahaa marka maya, asagoo sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay la shaqaynta saaxiibkii Shahrukh Khan. dhinaca kale Shah Rukh Khan waxaa u diyaarsan filimka Jab Hai Meet Sajan oo kula weheliso Anushka Sharma. daawadayaal barnaamijka xulka wararka Bollywoodka waa ninka intaas, waxaan ila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. kulanti dambe oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo.